السلام عليكم هديات ku cusubtay channelkan Diyaara Malcabdi fadlan subscribe saar haddii aad ka heshay muuqaalkan like iyo share haddii aad su'aal qabtidna commentiga noogu reeb la soco barnaamijyadan wiigiiba hal mar hooyo iyo dhalaan maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay xaaladda loo yaqaano pre-eclampsia ay hooyadu la soo dirista xilligay uur qaado haddaba waa maxay pre-eclampsia waa cillad uurlaha ku timaado oo lagu garto bilowga dhiigkarka iyo badanaa tiro aad u badan oo borotiin ah oo lagu dhex arko kaadida hooyada xaaladani haddaba waxay la soo diristaa ama ay la kulantaa hooyada ay ku bilaabantaa 20 isbuuc ama 20 toddobaad uurkeeda kadib amaba waxay dhici kartaa ka hor uurka ama umusha kadib haddaba xaaladan daran ee cudurka pre-eclampsia waxay keeni kartaa ama ay sababi kartaa jajabinta unugyada dhiigaaga cascas iyo tirooyin yar oo dhiig kara shaqo xumada kelyaha iyo amaba barar lugaha iyo gacmaha iyo wajiga ah iyo neef qabatin sanbabada oo la xiriira dheecaankaaga sanbabada amaba khalkhal ku yimaada xagga aragtida haddaba cudurka pre-eclampsia wuxuu kordhin karaa halista horumarinta natiijooyinka liita ee caafimaad darro hooyo iyo dhalaan labadaba haddii haddaba la daaweyn waayo xaaladan waxay keeni kartaa xaaladda loo yaqaano eclampsia waa xaalad aad u daran waa cillad ku timaada hooyada xilligay xaaladeedu usoo gudubto xaaladan pre-eclampsia oo suuxdin iyo gariir ku keenta haddaba 200 ee hooye qababa pre-eclampsia waxay la kulmaan mid baa la kulanta xaaladda eclampsia xaaladda hadday la kulantana waa xaalad aad u khatar badan haddaba waa maxay calaamadaha lagu garto pre-eclampsia waxaa lagu gartaa borotiinka oo lagu dhex arko kaadida amaba barar lagu arko wajiga iyo gacmaha iyo lugaha qaybta hoose miisaankeedu sii kordhaya maalin ilaa 2 maalmood xanuun caloosha ah gaar ahaan xagga dhinaca midig ee kore ama xanuun aad u daran matag iyo lalabo iyo sababayaasha aragga oo daciifaba ama aragtida oo daciifta haddaba maxaa sababa amaba keenaba pre-eclampsia waa maxay sababta keenta khabiiro badan ayaa u malaynaya pre-eclampsia inay dhacaan markay mandheerta haweeneydu u shaqayn weydo sidii la rabay ama loo baahnaa halkay qaarkood cilmi baadhis ku sameeyeen oo ay dhaheen nafaqada oo liidata jirka amaba dufanka oo ku bata jirka inay wax ku kordhin karaan qulqulka socodka dhiigga ee ilmagaleenka ayaa door muhiim la ka ciyaari kara amaba hiddo-wadayaasha haddaba waa maxay dhibaatooyinka ay keeni karto eclampsia iyo pre-eclampsia ama cawaaqib xumada ka dambaysa ay sababi karto pre-eclampsia waxay sababi kartaa inay xanibi karto mandheertu inaanay helin dhiig ku filan mandheertuna waxa weeyaan xadhigga u dhexeeya ilmaha iyo hooyada kaasoo ilmaha hooyada uga soo qaada nafaqada iyo oksijiinta qashinkana ka saara kaas ayay sababi kartaa inaanay helin dhiig ku filan marka waxay ilmaha ku sababi kartaa inaanu ku dhalan miisaankiisii caadiga ahaa taana waxaa lagu magacaabaa xadidaadda koritaanka uurjiifka hadda waxay kaloo sababi kartaa dhici soo noqnoqda amaba naafanimada maskaxda ilmaha iyo suuxdin ayay ku sababi kartaa haddaba waxaa kaloo dhici kara dhibaatooyin xilliga pre-eclampsia ay dhacday xaaladda eclampsia u gudubto xaalad aad u culus oo marmar dhif ah ayay xaaladani dhacdaa faalig ayaa dhici kara suuxdin iyo wadna istaag indho la-aan soo noqoshaan lahayn pre-eclampsia iyo eclampsia waxay waxyeelayn karaan beerkaaga iyo unugyada dhiigaaga waxaad la kulmi kartaa xaaladda loo yaqaano ama dhibaatada loo yaqaano Helmin syndrome ama dheecaanada beerkaaga oo sareeya oo ku sii daaya kiimikooyin dhiigaaga jirka haddaba waxaynu wiiga ku xiga ka hadli doonaa sidee ayaa loo daaweeyaa pre-eclampsia iyo eclampsia amaba sidee ayaa looga hortagi karaa la soco barnaamijyadan